walaalayaal waxa ayaan daraa colaada ceelafooyin ka soo cusboonaatay in Somaliland u kala hadhin mudankeedii iyo kuwoodii ugu sareeyay hadday madax tahay hadday culimo tahay hadday salaadiin tahay hadday waxgara tahay arrin iyo adduunba la isugu geeyo goobta ceelafooyin haddana ilaa maanta inay halkeedii taagan tahay oo maalin walba dhiig cusub uu daadanayo waa ayaan darro ina haysata waa dhibaato haddaan wax laga qaban inay inagu baahdo amnigeena wax yeesho aynu halis iyo khatar ugu jirro waxa waajib ku ah beelaha walaalada deegaanka wada dega ee midina aanay meesheeda ka guureyn ee gurigeedii ay degan tahay ee dhal iyo dhasheedii ah ee dhulku u deeqayo wada qaadayo waayo waxa isku dirayaa waa shaydaan laakiin daaqa iyo deegaanka iyo dhulku waa ku filan yahay ilaahay baa ballaadhiyo waasiciyay waxa la gudboon markaa dadkaas inay ilaahooda ka baqaan inay naftooda naar uga baqaan waayo nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri daltaqal muslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi an-naar labadii muslim markay seeftooda iskula kulmaan ay iskala hor yimaadaan iyadoo mid walba ka kala dilkiisa uu doonayo kii wax dilay iyo kala dilay labaduba waa ahlu naar saxaabadu waxay yiraahdeen rasuulkii allow kan la dilay garanay ka wax dilay baan u jeedaa garanay laakiin kala dilay xaalkiisu waa maxay nabigu waxa uu yiri innahu kaana hariisan ala qatl saahibihi isaga laftiisu teelo uma dhigan wuxuu ku dadaalayay walaalkii dilkiisa laakiin waa laga horeeyay uun waa isku mid markaa oo labadoodaba naarta hanti u ah beelahaas waajib waxa ku ah in aqligoodu soo noqdo inay ilaahay ka cabsoodaan inay naarta naftooda uga ba'aan inay intii dhimatay inta nool u taliyaan inay dadka waxgaradka iyo culimada iyo dawladda iyo ummadda la talinaysa nasteexa u ah inay taladooda qaataan in ummadda Somaliland aanay ka daalin ee ay u gurmato waayo dabkaasi intuu baxayo waa dab inagu wada baxaya qofka halka ku dhintay way inaga wada dhintay dhibaatada halka ka dhacday way inagu wada dhacday gogol kaliyeenu ku wada fadhinaa oo sallidaan nabadgelyada haday wax ku dhacaan dee wayna wada saameynaysaa waayo meel walba waa la wada joogaa marka in laga hortago oo lagu dadaalo lagu baxo oo arinta aad iyo aad wax looga qabto dawladeennana ilaahay khayr siiyo waa dadaashay oo hawshii hore iyo waxa weeyaan wixii arrin iyo adduunba ku baxay dee waa ku dadaashay maantana dadaalkii halkii inay ka wado oo aanay ka fadhiisan waliba gaar ahaan cidda gardaran ee la kari laayahay waa la ogaan doonaa oo waa la garan dawlad iyo shacab iyo culimo iyo cuqaal iyo waxgaradba qofka xaq u joogsan waaya qofka ummadda xurmayn waaya qofka gardarre ka hadhi waaya sidoo ilaahayna amray laftiisa waa in la edbiyo dhigta lagu dhufto waayo qofka daalinka ah hadii waana ay joojin waydo hadii wuxuu sheegu joojin waayo waa in gacan dawladeed iyo haybad dawladeed uu ku joogsado waxa weeyaan qofka ilaahay ka baqan waayay ee kala cabsooda yeelan waayay dee waxa weeyaan awood dawladeed oo laga haybadaysto un baa wax ka qaban karta marka dawladuna kaalinta ay ku leedahay ee ah haybada ilaahay dawladi inay muujiso waa arrin muhiim ah oo awoodeed iyo cududeeda ay ku kala badbaadiso oo qofka daalinka ay ku qabato waajib weeyi waayo ilaahay baa yiri fa in baqad ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri allah labada qolays diriray dhexdooda wanaajiya baa alla wiiro heshiis ka dhexdhiga dhexdooda laakiin hadii midkood ta kala ku gardarooto loo taag waayo la dagaalama oo dhinac kaliya ka wada noqda taa daalinkee adyada iyo gardarrada wada marka cidii xaq u joogsan wayda kulligeen waa inaynu dhinac ka noqono hadii dawlad la yahay hadii culimo la yahay hadii cuqaal la yahay gardarradu cid ma leh gardarro waa gardarro daalinkuna cid ma leh daalimku waa daalim garab waa inaan lagu siin walaalayaal inaynu sidaa yeelaa innakay dan inoo tahay ammaankeenna ku ilaashamaya masaalixdeenna ku ilaashamaysa cadawgeenna iyo dadka xumaanta dhexdeenna la doonaya ayaa fursadda iyo jaaniska ay heli lahaayeen ka baaba'aya ilaahay waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ummadda islaamka ah
ee dulmiga iyo gardarrada isku dilaysa ilaahay boggooda burcada isku mariyo, ilaahay ha isjeclaysiiyo, colaadda alla ha ka joojiyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdooda nabadgelye iyo ammaan ilaahay ha dhigo. innakana ammaanka iyo iimaanka alla uu ina siiyey alla ha inoo siyaadiyo, alla ha inoo sugo, ha inoo xasiliyo, wixii waxyeelayee dhib ku ah alla ha inaga dhowro. ka xasadka iyo xumaanta iyo dulmiga inala doonaya ilaahay isagaa awoodo arkaya alla ha inaga qabto. ka nasteexa ah ee dadka iyo dalkaba la doonaya wanaagga ilaahay isagaa arkaya ha u gargaaro, garab iyo gaashaanba ha u noqdo. ummaddeenna amniga alla uu siiyey alla ha inoo siyaadiyo, amniga alla ha inoo ilaaliyo, amniga alla ha inoo ilaaliyo.